بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان أمة الصوماليات أنت إدريسنيسة وحن ربع إن ما أنت كهدلو مناسبة إن لو أستي إن كوبي لبعتن كسبتمبر وسنة لها ويونايتد نيشن كو أقون سدين runtii wax walba oo loo baahan yahay waxa la sameeyaa maalinkeeda oo ummadda ka dhaxaysa nabad markii laga hadlo nabadda ummadda ka dhaxaysa maalinka majaacada iyo maxay gaajada iyo dhibka humanitarianka ummadda ka dhaxaysa wixii dadka ka dhaxeeya maxaa yeelay golaha ammaanku waa golihii dadku ay ku dhamaayeen waxaana ka midnahay ummadaha ka mid ah golaha ammaanka ka midka ku jira dawladaha ku jira marka qolo walbaana baahideeda gaarka ah leedahay iyo maalinkeeda gaarka kuwana wax dad ka dhaxeeya marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan marka u duceeyo marka hore oo niraahdo waxaan xanuunsan Ilaahay caafiyo inta dhimatay Allah u naxariisto dhibka iyo colaaduhu meelaha ka socdeen Ilaahay inaga damiyo nabad marka la leeyahay nabaddu waa tiro badan tahay waa wajiye badan tahay وباهي كلا قديسة بلادها مركور إلهي بالسلام أسماء دي سو كشرته السلام مرك هذا نبض أسماء دي سو حكوا أنت كشرته بحور وحي أنو أنا بهانو بني آدم مرك وحن كبري إن الله سبحانه وتعالى أنو هذا نسومالين هاي سجارهن وبهانه نبض سجارهن ولا دمني محيطه الآن نبض نجمع قانون أي دبعت نور النسيسي إلهي وحن كبري هي إنه الرحمن نمديس الرحيم نمديس سبب سومالي نبدأ السعوديين إلهي كبرياء ونوكانو أنا ونكون كفايدة إن نقولنا بن إلهي كبرياء أنت أمريكا كسر تكتو وحن كمل أنا ومد الصوماليات ومسؤولين تأه وطل كان مركو دولة ينبض يبرواقة هاي السنة كنا صوب برتوح كنا الشقي كنا الرقم وكنا ولا dhibka markii uu galayna ku noolaaday oo ku dhaqmay oo maxay dadkii la joogay marka waxaad moodaa aniga iyo dadka igu qarniga isku age ka nahayba inaan isku wax ognahay oo isku si wax u naqaano baad moodaa taasoo ah waxaan soo aragnay nabad Ilaahay na siiyay oo marka dawladnimadii jirtay hoosteedii lagu noolaa waxa lagu baranayay lagu shaqaysanayay lagu socday aan soo aragnay haddana waxa imrigayaga iyo nasiibkooda nagu simay inaan soo aragno dagaallo waliba ayagu wajiye kala gadisan iyo xanuun kala gadisan iyo maxay magacyo kala gadisan iyo taabasho kala gadisan intaba le aan soo aragnay baa Ilaahay uu ka dhigay haddana uu na gaarsiiyay marka horta ma hadda Ilaahay baa iska leh laakiin waxaan rabnaa أنا حيوان ما هن تطبعنا بني آدم كنا حيوان إلهي وحقوق الفضيلة وحقوق البدلة عقلي أنا لسي أنا أو حقوق رنه حيوان كوالله تليا ولا حرية ولا قشة ولا ورق ما لكن أنا ولقد كرمنا بني آدم بإلهي روان كرامي أرلد عنا آدم بإلهي قليف وقدق وحويري ملائكة إلهي كوير وحنو سمينا أرلد خليف ورد بني آدم العقل اللي سيانا مسؤولية الأديبانا أنا جيبها حتى ماشي تدوى وين كأهو وهي البالية وروحها كل سعودة صدن يدور سنة إنسان وح هذانا وح قروح بدن معهن وذا تدي بتشوجا وحقرت كي بتشوجا وهي الكي بتشوجا هو يوين كي بتشوجا دلنا يردي بتشوجا سوماليا أنا وحن قوي هذا واسكتال مكة وايس كرسنا وايس دلنا وايس لتجنا وايس لا محيط نولعنا وحنا رير كورة رير بادية وهاد بمشي روبكو كده آده ورمكة الجوري كرنو ورمكة العراري كرنو والشركة إديك سوكا يقال مكة السعر كرنو وروحنا جمقن وأنا هذا مركان كلجي فديو سيد أنت بدنا تكلجي باشاكستو إنه ويا لماذا تهي إن محيط وقت جارسية ما قرنا سيد سف عم بكرة وشاكستايو أنت فريسة وحيرة محاقلة
xagee wax ka waxaysan yihiin maxaa yeelay dhibkii iyo culayskii ayaa naga batay marka waxaan iraahdaa dadka hadaad heli lahayd dhowr qof oo sidoo kale u sheekaysa oo isku timaadaan show waxbaad soo saari lahaynoo halka tilaabo hore loo qaada waxbuu noqonaya war ma kala guuri karno oo ma kala qaxi karno oo ma kala calaqi karno waxaa naga maqwarsee u wada noolaana warsee loo noolaada war maxaan ku heshiinaa awoowayaashiina dhalay iyo kuwii ka dhalay iyo kuwii ka horreeyay waa soo dhibtoodeen mar waa la istiri jiray waa la kala guursan jiray waa la isla dhaqmi jiray haddana dhibku intaan waa ka yaraayo xataa dagaalka marka la aadayaa toorey iyo waran iyo ul baa la isla dhici jiray war dadkan kaaraha sito oo mishigaanka isku garaacayo oo baadiyi garabka ugu xamaalsan yahay waxaan u baahannahay caqligu inuu taliyo markaan waa markii caqligana hadda ilaahay markuu maxay to ummadiisa la hadlaayo oo soo dejinayo quraankiisa yaa ulul albaab buu yiraahdaa kuwa caqliga u saaxiibka ah war dadkiina caqliga u saaxiibka ah Soomaalida ah sidaan aan wax ka bedelno sidaan waxaan dhihi lahaa waxa laga bedelo gaala banaanka timid inama heshiisiin karaan kuwa kale inama heshiisiin karaan malaa'ig ilaahay noo soo diray waan heshiisiin kartaa laakiin yaanaan sugine caqliga waa nagu jiraa xooga dadka la isku dirayo oo xoolaha lagu aruurinayo oo lagu shaqeynayo oo lagu magaciiseynayo oo geedkan maxay to faa'iidana waa leeyahay qasaarana waa leeyahay hadda anu aan ka hadlayo la fiirsanaya markaan fiirsado anu inta badan ma fiirsado markaan fiirsado qalbiga ay xanuuno waa ka dhuntaa inta badan waa ka dhuntaa bahal baa la oran jiray wuxuu hoostu madaxa gashadaayo runtu ka dhuntaa waa ka dhuntaa kan inaan fiirsado waxaan uga dhuntaa dad dhalinyaraha oo Soomaaliya meesha ka timid iyo wixii laga soo maray iyo maxay to waxa xataa ilaahay dadku kula xisaabtamay aad moodid inaysan wali gaarin waqtigeedu dhalinyaro yihiin baa wixii isku sii shiday dadka yaan la isku shidin dadkan waa wada dhashay dadkan waa walaal ma kala guureyno ma kala tagayno waa isla deganaanayna marka aan isla deganaanayna ma waxaan ku heshiinaynaa inaan isdilno inaan iskula deganaano mise waxaan ku heshiinaynaa saan inaan wax ka bedelno waxay u baahan tahay caqli waxay u baahan tahay odayaal waxay u baahan tahay maxay talo nin odayo maalin dhexdaas hadlaya wuxuu dhahay waxyaalo itaabtaa jira marka aan maqlo nabadoonnimada iyo odaytinimada iyo caqligu ma ahan in inta la tago carwooyinka koofi iyo cimaamad laga soo iibsado ما أنا قفل بكوفي وقشن كر أنا ود كوفي عمامدي وقعدن كر وح يدي كرنا تد هدنا هدا على هذا أنا الشرحه قفل هذا الكلام أنا ما أركض تذكر بتيه بالبشرة ولا ورثين لا وتيه رب بن إسرائيل هنكرين مركو ضياش كوفي هذا ستو عمامده ستو كوا دقن كبركو هراء أبياشود أي هاين بدونا وجسد ولا يسقناي ما وح أبياشود دركو إذا كسر قشرين inay ka soo hormariyaan bay wax fiican bay ahayd wad nabad bay raadin jireen laakiin adduunka casriga inay la socdaan oo aan gadaal loo celin dadka inaan dadka la isku dirin inaan dadka dhexdiisii dadka diriraya dhexdiisii laga sameyn balaayo wuxuu qof walba ilaahay ba ka baq rabbiga ku abuuray ka baq naf walba qabiilkaaga ku raacmaysa kaliya ba qabriga leh saas waliba lagu sii celinaya meel il ah saas lagu sii saaraya tirnig saas lagaaga maxay ciid korka lagaaga saaray laga soo tagay suuqa meedka looga adeego hadda qofka naftu ka dhacdo meel waxa laga soo gaday markaad dhimato hadda suud baa qabtaa ookiyaala qabtaa saacad baa qabtaa katiinada qabnaa dahab baa noo xiran naftu markay naga dhacdo waxa dharkay waa marada cadeyd waxaan ku seexanaynaa waa fuustooyinka dhamaaday iyo geedo qoryaha dheer oo xarara oo dhamaaday oo suuqa meesha ugu leeyato geeska lagu gada bakaara meel luqay yaalna meel walba waa saasaan islee war Allah laga boqo dalka iyo dadka yaan la gisaan yaan loogu taline aqligu ha taliyo aqliga ha loo soo laabto wiilasha yararka oo dhalinyarada ah oo dhashay dagaalkii ama 10 sano jiray oo maanta 40 xoogaa jirka ama dagaalku ku dhex dhashay dawladnimo Sooma arag hadda dambigooda waa loo cudur daari karaa laakiin dadkayga dawladnimada soo arkay oo qabiilkiisu inuu maqlo shafka inta garaaca
ummadda isku sii dirahaya oo afkiisa markii la fiirinayo ama aqoon-yahana ama maxay to nabadoon ah ama ganacsade ah oo markii la fiiriyo hebel baa hadla la dhigto gadaal u laabanaya waxa laga daayay dadka yaan qabiil loo kala soocin dadka nabadda loo raadiyo dadka xamar jooga oo hadda xamar ku noolaa qadcad baa noo xirnaa cagaaran baa xamar noogu xirnaa waa isku gudbi weyn waxbaan is oran weyn waa baaba'nay waa rasilicnay waa rafaadnay qofkii qurux badnaa oo dhar fiican qaadan jiray oo reemaga dharkii waa waayay annaga dadku nooc kale oo ka ilaahayna marqaatu ka yahay annaguna waa joogn inta joogtana marqaatay ka qof walba nooc gaar oo ekaado oo duruufta oo ekaysiis ilaahay baa naga kor qaaday ilaahay baa nasriga noo soo dejiyay dadkan Soomaaliyeed waxaan ku oo waliba dadka xamar oo dhibku u badan yahay xamar dhibkay qaadatay sida wax noo gaareen oo dadka dhibaatada u gaan sida ilaahay noo kaalmeeyay isma leh dadka resilience badan bay gaaladu markay noo yimaadaan waxay resilience baa leedin baraya dadkaana kaba badiyaba waa la dhibtooda qofna markuu ogaaday meel wuxuu maqay alla maan aadana u maqan inuu soo jirin buu dhaqaaqay isbitaal ma aananaysan ambulaasteedu waxay ahayd maxay gaari gacan meedkii oo dhiigu ka daadanay gaari gacan lagu qaadi jiray isbitaal la geeyay lama hayn wax dadku ay maxay qofka isbitaalka la geeyay sariiru seexdan la qurxoon lama hayn war waxa waa la noolyahay hadda waa la barwaaqaysan isbitaalaan haysan Allah khayr Allah si dhaqaatiirtu waa dadaaleen inta mal soo laabteen ayagoo dadka qaarkood banaanka tagay bay noo soo laabtay maanta waa barwaaqaysanay barwaaqadii laakiin waxay u baahan tahay in lagu dhex shaqeeyo waxaad arkaysaa dabaqyo dheer qowbash war dabaqada nabad jirin ma taagnaanahay inta dabaqa la dhisayo nabadda aan dhisno hal la shaqeeyo hal la isu yimaado dadka hal la heshiisiyo dariska ha heshiiyeen dadka hal la isu keeno qof walba waa isnaqaanaa magaaladan dadkii jooga dadka ku cusub hadda yimidna hadda waa midna intii ku filan waa barteen dadka magaalada deganaa gurigan reebel badan ka reebel xaafada anigu aan ku noolaa geeskaas aan inta uga soo bilaaban geeska kale ku geynaya cidii degan waa aqaan inta dariska noo waa reebel marka daris wanaagina hal la muujiyo Soomaaliya ma kala maaranto nabadda annaga u baahan nooma baahnee nabadda hal la xoogsado annagu urur ahaan waxaan u istaagnay markii dhibaatadu dhacday marka u horeysa inaan nabad raadino kismaayo 4 jeer baan tagay gadawaad tagay meel aan tagin oo ilaaban way yartahay intaas waxaan raadinayay dadkii naga lumay iyo nabadda inay isku soo noqdaan alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka dhalinyarada ah oo hadlahayo hadda baarlamaanka iyaga jooga oo dhalinyarada baarlamaanku u badan yahay dad dhexdhexaaduna waa ku jiraa ma ahan marka baarlamaanka markaad fariisato qabiil uma fadhidid waxaad u fadhidaa Soomaaliya u fadhidaa anaad matalaysaa aan ku qabiil ahayn gabadha isbitaalka taalaad matalaysaa waayeelkaad matalaysaa qof walbo yaanaan ka dhigan hay maqla qabiilkayga hay maqla hebel muxuu yiri hadina dhalinyarada tihiin waxaad tiraahdaa maanta waa qurmaysaa waxa aan dugsanaynaa waxa weeye sagaal maxay dhowr nin oo inta isku timid odayaal waxa dhalinyarada marka ahaa Israel leegadii oo waxba baran aqoonta maanta anagu aan haysan ba Soomaalinimo raadiyay Soomaaliya toosoo isku tiirsado hadba kiina taageer weligiin markii la arkay Soomaaliya meeshii gaartay markii la arkay saan u socono markii la arkay waxa aan la soo baxnay markii la arkay waxa aan samaysanay adweey ma buu noo sameeyay waa noo tashaday gadaal buu noo soo celiyay brrrr hada laflaf bal isku riixaya reehbel anaga ma qaadi karaan waxayga waa lagu soo celiyay reehbel anoo markaan wax baranaynay ama aan soo kacnay waxaan masawirnaa oo inta garanayso maanta ay dhageysanaysaa wan alagu masawiri jiray wan caloosha mas uga dhagan yahay macasha abeeso uga dhagan tahay barida ruwa uga dhagan yahay shanta Soomaaliyeed halkaas kala joogta halkaas taargetku u ahaa maanta waxa la isku soo celiyay geedihii banaanka halka ku yaala marka roobku ku da'ana xareeda laga cunayay 3 bilood marka kana abaarta loo kala cariray inta meeshigaan wiilal qaateen ay maxayto qabay urugubo
inta fureen aysan wiil reebin oo habar reebin ilmo yar reebin qof reebin waayeel reebin war hal xishoodo dhaqankii hal istay dhaqan baan leenahay adag oo fiican diinteeda islaamka oo diin salaamo oo nabadgelyo aan haysanaa warka muslim markaan wax dilayna madhabde ku dilnay muslim baan nahay Soomaali baan nahay waa is dhalnay waa isla dhaliyaa dilaysaa aadishiisa maxaa ku dishi war muwaadin ilaahay inuu bari kula xisaabtamo inaan ka baqayn waxaan dhihi lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa marka uu horeyso inuu asoo iimaanka nagu soo celiyo intay ka maqan tahay oo xasilaadna geliyo inuu naxasiliyo Soomaaliya nabadda u soo celiyo nabaddu ayada annaga ku nool ayadu nuguma noola annaga u baahan hal la xajiyo hal la adeeca madaxda hal la adeeco ilaahay baa yiri madaxda qaldanto waxba isu rabaa la xisaabtamay annaga adeecu Allah wa adeecu rasuuluhu ulul amru minkum annaga ulul amriga markuu noo yahay madaxweynuhu waa madaxweynahayagii ama aan dooran oo yana dooran hal la adeeco aan la isfurfurin yaan la iscaayin yaan la isbarbagaamin yaa dhibaato la ridin hal ilmaha dadka hal bar dawladnimadu ha weynaato hataa uu tiraahdo madaxweynuhu igu qabiil maana tuuriye kala daal ama aniga dantay kama wacda tuuriye kala daal goorma dawladnimo la gaaraya madaxweynuhu markuu noo fariisto madaxweynuhu qof kasta madaxweynuhu u yahay waa madaxweynaha qaranka oo madaxweynaha Soomaaliyeed calanku noo matala asaana matala hal laga dambeeyo hal loo duceeyo aan isu duceyno balaayadan iyo orodka iyo weerarka iyo hal laga daayo dalka iyo dadka dawladnimada hal dhinac istaago Soomaalinimada hal la xoojiyo Soomaali baa iska leh waa wada dhalanay dhulka waa wada leenahay xoolaha waa wada leenahay calanka waa wada leenahay dawladnimada waa wada leenahay aqligii isku kaykeena baa naga maqane barwaaqo iyo resource iyo wax walba haysanay aqliga iyo leadership noodu ha sareyso waa inaan hoggaan fiican dadkuna u helaa hoggaankooduna dadku ina adeecaan waa mahadsantiin wabillahi tawfiiq